Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Walaalayaal soo dhawaada janalkeena ganacsi online subscribe inoo saara follow iyo sharena ku dara. Maanta waxaan idin haynaa program cusub oo lagu magacaabo Unify Mall oo dhawaanahan wadanka Soomaaliya soo gaaray. Dadka isticmaalaya ay yaryihiin dad oo dhif oo yar. Ilaa hadda maanan arag qof muuqaal ka soo duubay, marka waxaan filayaa inaan noqdo qofkii ugu horeeyay barnaamijkan muuqaal af Soomaali ah ku sharxo. Marka barnaamijkan marka hore waan iska diiwaangelinaynaa. Waxaad isku diiwaangelin kartaa laba qaab, by email ama by phone ayaad isku diiwaangelin kartaa. Marka ujeedaa emailkaada geli oo ku leeyahay passwordkaada. Markaad isdiiwaangelisid kadib login aad dhihi kartaa. Sidoo kale dhanka kalena waxaad isticmaali kartaa dhanka telefoonkaada gelinaysaa iyo passwordkaada. Marka login markaad gelisna waa kaas. Waxaad soo dooranaysaa wadanka Soomaali. Zip code Soomaali ayaa ku soo baxay 252. Kadib telefoon numberkaada gelinaysaa. Kadibna passwordkaada baad gelinaysaa. Marka aniga hadda waan galayaa ila socda. Password baan gelinayaa. Sign in baan leeyahay. Soo kacay. Announcement-gan buu bixinayaa marka aad u jeedid. Hadaad ku shubato $9 waxaad faa'iideysaa ku leeyahay maalintii $2. Isla maalintii waa la bixi kartaa. Warar badan baa meeshaas ku yaala. Hadaad ku shubato $69 waxaad la bixi kartaa maalintii $16. Marka levels kala duwan uu leeyahay. Marka waad u jeedaan $269 ku shubi kartaa. VIP 3 waaye. Lacagtana way ku sii badanaysaa. Marka muuqaalkiisa barnaamijkan Unify-Mall qaabkan buu u yaalaa. Maalmo ka hor ayuu isoo gaaray. Marka waa tijaabiyay. Lacag yaraan ku shubay aniga hadda $9 aan ku shubay. Shalay iyo maanta ku jiraa $4 oo lacag baan ka sameeyay. Lacag walbo markaan ka helno horaan withdraw ka dhawayaa horaan ka soo baxsanayaa. Marka 24 saac wuxuu leeyahay withdraw. Marka saas uu ku fiican yahay barnaamijkan. Sida Tradebot oo kale Tradebot bishii 3 mar ku ogolaa inaad wax baxsato. Laakiin haddii dad aad diiwaangelisid hadaad soo diiwaangelisid wuu ku ogolaanaa inaad mar kale wax sii baxsatid. Marka waad u jeedaan midkaan $9 baan dooranayaa. $480 aad u jeedaan oo lacag bishii aad helaysid waaye. Recharge baan dhahayaa. Midaan baan lacag ku shubanayaa $9. La socda steps-ka la marayo ogaada. Address-kaas baan soo koobiyaynayaa. Iyo waxaan geynayaa Binance-gayga ayaan geynayaa. Binance-gana waxaan ka soo dhahaa withdraw. Internet deposit ayuu ku yahay ama recharge ayuu ku yahay. Marka copied ayuu dhahay successfully. Binance baan aadaynaa. Saad u jeedaan intaas baa igu jirta Binance. Marka USDT baan raadinayaa koraan ku qorayaa. Network dooro network waan doortay. Address-kan soo qaaday baan inta gelinayaa. Address-ka kadib network baan dooranayaa TRC20.
lacagta aan dhigayo $10 baa laga rabaa inaan dhigo. $1 Binance-ga iska leh, 9 oo ii galaysaa. Marka withdraw baan dhahayaa. Process-kii baa socdaa. Lacagtii $9 baskii verification ayaa laga rabaa buu leeyahay. Marka waan marayaa ila socda. Okay, withdrawal processing ayaa socda. Daqiiqado yar bay qaadanaysaa. Marka waan sugaynaa. History baan galaynaa. Lacaga aan diray, lacago baa meeshaad ka muuqata. Completed ayuu dhahay. $9 waa la isoo bixiyay, waa la igu shubay Unifimall. Marka Unifimall-ka baan booqanaynaa. Waxaan soo koobiyeynayaa TXT ayaan soo koobiyeynayaa. Tixraacaas baan soo koobiyeynayaa. TX ID baan soo koobiyeynayaa iyo screenshot baan ka soo qaadayaa. Lacagta withdrawga page-kaas recharge baan ku dhufanayaa. Marka haddaad u jeedaan waa 00 waa lacagta. Total balance waa 0, recharge amount waa 00. Recharge completed baan dhahayaa. Marka waad u jeedaan $9 way ku jirtaa. $2 baan faa'iidaya maalintii. Shaqadii waan qabtay. Hal shaqo baad qabatay buu leeyahay maanta. Wax shaqo kale oo maanta ku dhiman ma lahan. 0 ayuu ku soo qorayaa. Marka waxaan ugu jira marka aan fiirino waa $11 baa ku jirta. Marka $2 oo faa'iido baan sameynay. $2 waa la soo bixi karnaa. Marka la soo bixidaas ayadana muuqaal kale baan ka soo duubayaa ila socda.